madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa wuxuu ka jeediyay shirka qaramada midoobay ee 75aad khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ayuu ka jeediyay madaxweynuhu shirka qaramada midoobay. Madaxweynuhu wuxuu ka hadlay safmarka xanuunka COVID-19 iyo sidoo la tacaalay wadankaasi Turkiga iyo in la doonayo in la soo saaro la tacaalida iyo talaalka xanuunka COVID-19 taasoo ugu horeeya wadankaasi Turkiga. Madaxweynuhu wuxuu sheegay wadankaasi Falastiin xalka kaliya ee loo heli karaa waa in xuduudaha wadankaasi Falastiin lagu asteeyo taariikhdu markay 1967 taas oo dhacaysa bariga magaalada Jerusalem. Madaxweynuhu wuxuu jeediyay khudbado fara badan oo ku saabsan arrimahan ka soo hadalay daawade. Hadduu yahay channelkani mid kuga cusub fadlan subscribe noo saar si aan u helo saaxiibo adigoo kala mahadsanid. İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin'deki işgal ve amarka lagula wareegay dhulkii Falastiiniyiinta dulmiga haysta dadka Falastiiniyiinta kaas oo ah naburro dhigaya iyo in la sii wado dhaawac ku salaysan jinsiga. Gamcaha wasaqda kuwaas oo dhammaanba la wareegay magaalada Jerusalem halkaas oo ay ka jiraan 3 diimood oo waaweyn taas oo si joogto ah u kordhinaysa xiisadda iyo isla xisaabtanka. dadka reer Falastiin waxay in badan sheegayeen inay ka soo horjeedaan siyaasadda Israa'iil, dulmiga, rabshadaha iyo hanjabaadda haysatay in ka badan haaf qarni. waxaa jiray heshiis la diiday kaas oo ahaa dhammaan baysdhibis kaasoo la isku dayay dhammaanba in laga jaro khariidada Falastiin kaasoo lagu magacaabay jiray Deal of Century. Israa'iil waqtigan waxay dadaal ugu jirtaa inay sii haysato dhulkay xoogga kula wareegtay iyo sidoo kale heshiiskan oo u fududeynayay wada shaqaynta. wadanka Turkiga ma taageeri doono qorshe kasta kaasoo ay ogoleen dadka Falastiiniyiinta sidoo kalena aanan siinin xaqooda. ka qayb qaadashada wadamo badan ciyaarta ka socota gobolka macnuhu maahan inay ka baxsan tahay Israa'iil dadaalkan taas oo lagu saleynayo xuduudda caalamiga. parametreleri aşındırma çabalarına hizmet etmenin ötesinde anlam taşımıyor. Birleşmiş Milletler wadamada ku dhawaaqay inay safaarad ka furanayaan magaalada Jerusalem iyo wadamada ku hamiyaya waxay xadgudub ku tahay sharciga xalinta caalamiga iyo sharciga caalamiga kaliya waxaad ka shaqaysay dhibaatada ka taagan halkaasi inay ka sii darto. daha da çetrefil hale gelmesine hizmet ediyor. dhibaatada ka taagan Falastiin kaliya waxa lagu xallin karaa iyada oo la sameeyo dawlad madax bannaan, madaxweyne iyo sidoo kale in xadka Falastiin lagu asteeyo taariikhdu markay 1967 taas oo dhacaysa bariga magaalada Jerusalem. Devamlılık içinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebilir. waa in la raadiyaa xal halkii lagaga daali lahaa waxaanan macno lahayn iyo in kaliya loo sameeyo hal dhinac cadaaladda. Adaletsiz